Galxamur waa degmo ay xuduud leedahay Soomaaliya qaasahatan Puntland waxa ka faa'iideysta dad badan oo ka dhaxaysa reer Puntland iyo reer Ethiopia waana degmo cusub ilaa iyo hadda 8 sano bay degmo tahay ilaa 9 sano waxay leedahay khayraad badan togog bay leedahay mara oo looga faa'iideystayo beeraha aan rabnaa inaan ka faa'iideysano biyaha aan xirro hadii alla idmo waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo in aan wax qabad badan aan ka samayno waxaan kaloo rabnaa jid isku xira dekada Garaacad iyo Ethiopia inaan hadii alla idmo inaan sameeyna ku tala jiraa hadii Ilaahay yiraahdo maadaama ay tahay degmo soo koraysa oo ku cusub magaranaysa hadda geeskan Afrika Soomaaliya iyo Ethiopia xiriirsa inay tahay ganacsatadu sida ay uga faa'iideysato oo maadaama aan baabuurta transportiga iyo si aan u helo aan wadadaas Garaacad iyo meesha la yiraahdo gobolka Doolo si ay iskugu xirmeelhaayeen insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxay ku tiirsan tahay awalan waa xoolaha geel iyo ari iyo lo bay ku tiirsan tahay oo waxay koobaad ay ku tiirsan tahay waa magaranaysa waa xoolahaas waxa labaad ay ku tiirsan tahayna waa dadkeeda isku tashi sameeyay inta badan oo maarta wixii ay hadda ku dhaqaaqayso bulshada u baahan tahay gacan ka geysta ama qurbo joog ha noqdeen ama dal joog ha noqdeen ilaahay baana iyadana lagu galnaday alxamdulillaah rabbil caalamiin xoogaa roobka hadda xoogaa laga weerweeray oo dadku magaalada waa ka hayaameen meelaha noo dhoobay aadeen sida kale waa loo barwaaqaysan yahay alxamdulillaah waxaan joognaa gobolka Doolo degmada Galxamur oo degmada Galxamur ay ku taalo xagga bariga ay ugu dambeysay degmooyinka 7 degmo oo gobolka Doolo ka kooban yahay waxa la yiraahdaa Maxiyadiin Jaabiru Nuur aad iyo aad baan u fiicanahay degmada Galxamur markii aanu ka warrano oo meesha ay ku taalo aan ka warbaxshay waxay ka kooban tahay 10 santar 10ka santarba intooda badan laba ceel ma ahane dawladda Itoobiya qoday ma ahane inta kale 8 ceel oo ku taala isku tashi baa lagu qoday qurba joog baana qoday iyo deegaanka dadkii joogay baa isku tashaday aad iyo aad baan uga macalinayna wax leena khayr badan Allah idinka siiyo ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro khayr badan Allah idinka siiyo soo dhawaadan leenahay dalkan wuxuu wax ku yahay waa dadka qurba joogta way marka dadka qurba joogta waa in ay magaranaysaa sida ay dadaalkooda ay laba jibaaraan waayo degmada tan meesha ay halka ceel oo dogob ku yaala kala haan jirto dirgigii lahaan jiray haatan waxay leedahay 11 ceel taasna waxa sabab u ah waa dadka qurba joogta ah iyo isku tashi deegaanadu ay maaragtay ay gaareen weeye marka aad iyo aad bay u dadaaleen dhan kasta ay tahayna qurba joogtu waxay u tahay deegaanada tan laf dhabar bay u tahay dadka gudaha doorkooda waa ka qaataan shalay arigii baan gadnay geelii baan gadnay lo'dii baan gadnay magaranaysa dibidii baan gadnay waxaan ka qayb qaadanay ceelka hadda la dhagax dhigayo qaybtiisa tuulo kasta magaalo kasta center walba degmo walba qaybtooda bay ka qaadatay laakiin waa loo kala culays badan yahay oo waxa culayska u badan waa dadka qurba joogta maadaama dadka qurba joogta ay u dhasheen deegaanada tan ay u dhasheen ay ka soo jeedaan deegaamadan xoolaha dhaqatadu waxa la yiraahdaa meeshan mudug saraa la yiraahdaa gobolka Doolo wuxuu kulmiyaa gobolka Doolo iyo wuxuu kulmiyaa iyo mudug gobolka mudug sidaas daraadeed waxa la yiraahdaa mudug saraa la yiraahdaa waa gobolka meesha ugu xoolaha badan weeye waxay ka yimaadaan xoolahoodu ilaa iyo maaragtay Ethiopia mooyaala meesha u dambaysa ilaa gobolka City gobolka Dhagaxbuur gobolka Qurraxay gobolka Doolo halkaas ay ka timaadaan xoolahoodu ka yimaadaan waxa ay magaranaysaa ay caanka ku tahayba waxa weeye xagga xoolaha sida geela maadaama beeruhu ay ku yar yihiin waxaaba laf dhabar u ah waa xoolaha